Abashtain iyo jasiiradda iyo waxa oo dhan Mossad iyo Israa'iil baa ka dambaysa qolada barakaysanaysa. Ilaahay wuxuu tilmaamayaa quraanka dagaalada dunidana inay iyagu ka dambeeyaan. Kullama awqadu lil harb markay dagaal shidaan baba Ilaahay yidhi subxaanahu wa ta'aala kullama awqadu naaran lil harb 9 milyan oo fayl baa laga ururiyey 6 milyan oo fayl 6 milyan oo fayl intee la ururinayay 30 sana kaamila buu socday oo madaxdii dunida oo dhamay tagtay oo dhaqaalayahanadii tujaartigu waaweynada dunida oo dhamay tagtay oo akademiyiintii iyo dadkii la yaqaanay macruufka technology-ga hogaaminaya oo dhamay tagay wardiinta haday fasaxada wax soo hadhay ma jiraan hadhowna dadka waxa loo sheegaya xuquuqul insaan iyo xuquuqul atfaal iyo xuquuqul mar'a been buugagta lagu qortaa dadkana loo akhriyaa inta aan qaanuunku iska celin karin lagu xukumaa dunidaynu maanta joognana waa maqlaysaan waxa jaraa'idka iyo TV-yada iyo social maxaa la yidhahdaa media iyo waxay sheegayaan waa maqlaysaan ifsaada istaansatul caalam وتجارها هي أكاديميين هي دكودي تكنولوجي هوكاميني ما دد الدنيا دكيق عندك وهي أنا عبرت الدنيا دردن كف صدين بلا كفسي أنت دافتي ويعنين عرور لغشهم ما حادثة مرة على صدن سنة دود بيسعتي تحت القانون به ولا أركي 9 مليون فايل بلغ أوروري 6 مليون فايل 6 مليون oo fayl intee la ururinayay 30 sana kaamila buu socday oo madaxdii dunida oo dhamay tagtay oo dhaqaalayahanadii tujaartigu waaweynada dunida oo dhamay tagtay oo akademiyiintii iyo dadkii la yaqaanay macruufka technology-ga hogaaminaya oo dhamay tagay wardiinta haday fasaxada wax soo hadhay ma jiraan bini'aadamka akhlaaqdiisa wax kaloo xukumaa ma jiro hadduu diinta ka fasaxado haddii nabi luud qoomkiisii tuulooyin degan bay ahaayeen tuulooyin degan hadda waa fasaad la tacmiiminayo oo la taqniininayo waa fujuur siyaasiya hadda maaha fujuur fardiya ama fujuur shahwaaniya maaha waa fujuur siyaasiya qaadatu alcaalami wasaasatuha iyo teknolojiga kuwii u hayay hogaaminayay ayaa fujuurka kan iyo waxa kan faafinaya hadhowna dadka waxa loo sheegaya xuquuqul insaan iyo xuquuqul atfaal iyo xuquuqul mar'a been buugagta lagu qortaa dadkana loo akhriyaa inta aan qaanuunku iska celin karin lagu xukumaa intii caalamka hogaaminaysayna waxaad ka yaqyaqsooto ilma la cunayo adigu qiyaas ilma carruur oo la cunayo oo kuwa cunayaana ay yihiin madaxdii dunida saasadii dunida maalqabeennadii dunida ay yihiin kuwa bini'aadam ku qadaynaya ama ku cashaynaya oo maanta iyadoo sawiran la wada hayo haddii maxkamad la furi lahaa bay leeyihiin akthar min 30,000 shakhs oo dunida laga yaqaanaa maxkamad la taagi lahaa laakiin maxkamadana iyaga haysta xataa xukaamta ugu sarraysa maxkamadaha ku jira kuwa hadda fadhiya oo xukaamta ugu sarraysa maxkamadahaas qaar ka mid ah ku jira kuwaasi waxaa jazaa'irka iyo dhulkaa tegey ودوك إلهي قلت المامي سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون marka la yiraahdo war dhulka fasahaadinina waxay yiraahdaan waxbaanu islaaxinaynaba ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun ayuha al-ahibba tawxiidku hadduu lumo wax soo hadha ma jiraan bini'aadamnimada ku saabsan kama warramayna daaraha iyo gawaadhida iyo gantaalaha la diray kama warramay hadduu tawxiidku lumo waxba ma soo hadhaan إلهنا وحلي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقوين يبو إلهي كنت المامي إلهي حريكيسي يوحي اللي يري حريريان حريرينيني ابن آدم كخلق حين يهل إفساد اجتماعي قاسمين يهل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون بإلهي كنت المامي فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله
فأصمهم وأعمى أبصارهم. إلهي وحولي محمد أنت مركز شيستان إلهي توحيد كيسي الدين تيسا كتكتان أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إنا ملك فسهادسا الرحمية قرابة بقويسان. الرحمية قرابة قوة الله يقارنو أي قوة يدلين عقوق كان الله يبالة البابا يعني. إلهي وحليه سبحانه وتعالى أولئك الذين لعنهم الله. إلهي قوة سوى قوة الله نظري فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم ودق التريبا إلهي لا يدق حق الله مقلم ماله وإن التريب وإن حق الله أحكم ماله. إلهي وحقت الماما يا وحيابا يكو عام بحال وكم دي هي مركز التوحيد كالتقال إن كالتقال مدقليان عالم كينو ما أنت تشوفونه كلما أوقدوا للحرب أطفاها الله. مركز صائد تفشدا إلهي بابوريا بالله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اليهود أكثرهم أبشتاين هي جزيرة يوحودا موساد إسرائيل وكذا ما يستقل الله بركة سنسا. إلهي وحبت الماما يا قرآنها دقالنا دوني دنين يوخدم بيان كلما أوقدوا للحرب مركي دقال الشيطان بابا إلهي سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب مركي دقال نارات الشيطان بابا إلهي سبحانه وتعالى إلهي بابا اختيا لكن يقوى محيطة كودو ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قلك وحي لك سعودا با إلهي سبحانه وتعالى فساد وايو دون دقال كجرتو والنباد لقوايو انت مدحضة يا انت هنتظة له يا انت التكنولوجيا هو قابساك مسؤولة اندستريك هو كيالين الدول الكبرى دولة واوين يا شركات واوين ومبالين يا وحكا قضاء مركي دوني عبسي قليان ايدا قال دعون بيو فايدة ولذلك قاعدة دوا محي دقال وين جوكتا هذا لكن خيوط الحرب دقالك حديث وين أنا عن هذا كبحسن يعني مركا دونتنا وين تشوشين كرتا مركا دونتنا وين تسيدين كرتا مركا how to control the war دقالك وين تكنترولي كرتا وأنا عن هذا كبحسن لكن هذا وين الخريصة يا ديورد يفسل لها يا قنتال يفسل لها يا دبابات يفسل لها دم بلا يجرين إذا نك سمايا بلايا ضعفوفة كقول سمايا هي الدنيا بلايا ضعفوفة. إلهي سبحانه وتعالى قرآن قلت المام يددك فساد كوضع إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هو إلهي رسول الله طير السماء يقولكم فساد كلا بحث عظمة إلهي يريد أبا المركود وإن الله يوم أما الله صلبيهم وتلنتالي لوغو يوم أما الله مسافر يوم إن سعاد يوم ولدان محبا إلهي سبحانه وتعالى. أيها الأحبة أنت حوقي حوالها له أي الدنيا فساد السيد هو ذي فسادية وكل كذا فسادية وحيوان كذا فسادية وحنور ربي فسادية. إلهي نوحي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأرلدها فسهاديننا انتو إلهي السلاحي سبحانه. أيها الأحبة نصوص وحي إلهي والصادرين فساد جاجوجيان قولوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نبي الله موسى أيتولك كلها قولوا واشربوا ولا تسرفوا وحبها وعنا لكنها حد مننا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إلهي القرآن كوحينا قلت الماما يا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أدوك فساد بدء بر بو كم موضع بني آدم هو حي كسبداني مع أسيدو دي ظلم قودي وحي سميني يندرتي ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الأحبة دونينا هدي إصلاح للربوها
وهدي إلهي للرميون وهدي كتاب كيس للراعه وهدي السنة دي النبي طريق سي لما روحه أيوم بإصلاح جرا أما قال يدبقل كيس وفساد الدون عقاب آخره قال الراعسي اسكو ضدر هو مالك إلهي بيقول وحترى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومالك اللي يريد تضوي طبعا شركة دعيسة وإلهي كبرية كو عرضي يكو اللمين أيضا راعين مالك السقف كالصوم مسلمة وتضوي طبعا شركة دعيسة اللي يريد هذه اللي تبقى له وهكا صباحا ووحا ما أنت دوني ديانا دوني دوني ما عبسي كو جرتا يا لغا عبسانا يا انت حوق لي dunidoo dhammi fasaad bay ku jirtaa yaa dhaqaala burbur maxaa dhaqaalaheedii qaatay inta xoogala booftay dunidoo dhammi waxay ku jirtaa dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo xayawaannimo bal adal in xayawaanka laga hoos maro yaa hogaaminaya ma aha dadka waxaa xumaa hogaaminaya shukuraa iyo masaakiinta iyo dadka suuqa jooga ama dadka ay dadku yidhaahdaan nolosha ka dhace kuwa maaha ومشاهيرته يا أغنية يا ساسدة إيوه ضد مقعية ما موسك كود اللي وين ضد فساد كدنيا وراه ما من حمى الله الشيء إلا أنت أسوك فافا لكن قانون كان يجا عنده وهيا وهذا الشيء يقف عادي يهضوك له بري هراء كي يكون خبر السودة إلى هاي لك قريب beri horaa jaraa'idka waaweyn ee dunida iyo wax oo dhan ay ka qaylin lahaa hadda waa social media wax qaylinaya ma aha mainstream media ma aha maxaakamtii waaweynayd ma aha cidna uma xidhna cidna looma xidhin fasaadkaas idinna weydan hulaaqi uun laakiin goormaa laga badbaadayaa quraha marka ilaahay subxaanahu watacaala loo soo noqdo marka ilaahay diintiisa la raaco am najcalu aladiina aamanuu ilaahay wuxuuna leeyahy subxaanahu watacaala am najcalu aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati kalmufsidiina fi lard am najcalu almuttaqiina kalfujaar miyaanu ka yeelaynaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala kuwa iimaanka iyo camalka saalixa la imanaya mufsidiinta miyaan kala mid dhigayaa baa ilaahay leeyahy kuwa muttaqiinta ahaa alla ka cabsaday miyaa fujaarka lagala mid dhigayaa ayaa alaxiba cabsida aynu rabnaa maaha cabsida salaada qura nacam salaadu waa u horeysaa waajibaadka caynigii way ugu horeeyaan laakiin fasaadka ugu badani waa waxa bulshada ka dhexeeya calaaqaadka bini aadamku uu leeyahay mid dhaqaale ha noqoto mid ijtimaaci ha noqoto mid siyaasi ha noqoto calaaqaad albashariya ayaa waxa koowaade fasahaaday dadku waad moodaa cibaadaadka fardiga inay hadda ku dadaalayaan laakiin haddana waxaad moodaa kansarful awalka ku jira ayaa fasaadkaba ka mas-uula marar badan madax iyo majaba dadku way tukanayaan haddana wax waliba waa khaldan yihin waxay mustaxmilayiin waxaynu ogol lahay inta cibaadadana inaynu diinta ku xukunno nina salaada aantii rasuulka ahayd ma ogola inuu tukado laakiin markaynu dabadda u baxno salaada maraykanka iyo israa'iil baynu ogolla inaynu tukanno halkan waxaynu ku rabnaa inaynu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku xukumanno oo macnaheedu yahay wax kastoo aynu qabanayno markaynu halkan joogno inaynu idhaahno qur-aanku muxuu ka sheegay sunnadu maxay ka sheegtay haddii kale inaga asix maysaynu rumaysannahay laakiin markay calaaqaadka inoo dhexeeya timaado marka ay timaado dhaqaale marka ay timaado siyaasad marka ay timaado ijtimaac marka ay timaado noloshaynu wadaagno marka ay timaado dal iyo dad wada lahaanshiyo waxaynu rabnaa wax kaloo aynu jeebka kala soo baxnay inaynu ku dhaqno ilaahayna wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa aayadaynu ku bilownay khudbadda oo rabbi subxaanahu watacaala uu ku tilmaamayo umamka inuu halaagay falowlaa nafara min إلهي وحلي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أي هلا ما يتشراب با إلهي إليه دقي لكي نكهر أولو بقية من العقول والإرادة
ما يجران ضد عقل يكونوا صاحبه هذا يجري لها يما إلهي إليه سبحانه وتعالى وضد قاسم حقيقة والله ينهون عن الفساد في الأرض بإلهي وعقل أو صاحب كيري انت كلا وحي كجوجين لها يبا إلهي إليه فساد كبوك قصعدا لكن تهلا ما هلين ويا إلا قليلا ممن أنجينا استثناء منقطع متصل لبعض مفسرته ويكاد الثالث إن يروا إلهي سبحانه وتعالى وبدبادي انت سوي بدبادي وناقا إسفرطي أما انتي بدنا جسمي فرين انتي بدنا جسمي فرين تبتنا ولا هلاك إلهي نوحلي واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه هو ظلمك سمينا يوحي راعين وحي إلهي ونمعي بيدنك يدونان ووضعين وكانوا مجرمين بإلهيين وحانا يهايين كودا بإليالها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بإلهيين إلهينا دقن ما هلاقو إيهو إصلاح سميني ظلمكم ما هلاقو marka iyagu dulmiga sameeyaan iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala halaaga